ملفك أمنية نيسا فهد كشقيسي نيسا أنت تيجي كهر حياة أمني مسبرتها aqoonteeda ما برانين waxbarashadeeda aniga amni kama mid ahayn hay'ad amnina kama soo shaqeyn labadaba maya hay'adda nisa hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed waa hay'ad xasaasiya oo macluumaadka dalka ku ugu waaweyn hadaysan ahayn tan koobaad adigoo aan wariye soo ahaa siyaasadda muddo kooban ka shaqeynayay hay'ad amni oo u baahan macluumaad sirdoon iyo xogaha la xiriira sidee madaxweyne farmaajo kuugu aaminay waxaan u maleynayaa inaa u baahan tahay inaa fahamtid hay'adaha sirdoonka dadka madaxda ka noqda dunida oo dhan background-kooda adduunka oo dhan way ka dhacdaa ma aha 90% waxa madax ka noqda dad background-kooda siyaasad ka yimid waxaana lagu doortaa laba arrimood khibradiisa siyaasadda dalka taariikhda dalka aqoonta uu leeyahay iyo kalsoonida madaxweynaha uu ku qabo marka wax oo bidca ku ah Soomaaliya ma aha adduunyada badankeed waxa loo dhiibaa dad ama diblomaasiyadda ka yimid ama siyaasadda ka yimid ama military ka yimid marka wax cusub ma aha waxa leedahay anoon hay'ad amni ka soo shaqeyn aqoon amni soo baranaysa in la ii dhiibay sax bay ahayd madaxweynaha ku qancay madaxweynahana iga dhigay waana faraxsana waxaan ku iri bidca ma aha arin taliyaha booliska ma noqonin taliyaha military ma noqonin laakiin sirdoonka qaranka adduunka oo dhan waxa loo doortaa dad siyaasiyiin ah laakiin ayada ka culus amniga iyo booliska marka laga hadlayo military iyo booliska nabad sugid soo wax ka sareeya marka amniga qaranka laga hadlayo waxa laga fakaraa horta shayga wuxuu noqdaa la yaab marka ay Soomaaliya bas samaysay Mareykanka ka dhacda Yurub oo dhan bay ka dhacda Carabaha oo dhan bay ka dhacda Asia ka dhacda waxa loo dhiibaa qof baan garoonkiisa oo siyaasi yahay 90% aan ku dhahay laakiin waxa lagu doortaa qof maskax u leh xogtii amniga iyo xaaladda siyaasadda dalka intuu isku dhex kariyo maslaxada qaranka inuu ka soo dhex saaro qofkaasna madaxweynaha yaqaan laakiin isku duruuf ma nihin Soomaaliya Asia iyo Mareykanka hadii duruuftanada kuma jirto sadarteed nabad sugidda Soomaaliya qof background askarinimada waa loo dhiibaa qof civilna waa loo dhiibaa sharciga u ogol Agosto 2018 ayaa laga dhigay agaasimo ku-xigeenka hay'adda nisa madaad doortay mise madaxweynaha ayaa ku dooray adoo agaasimo guud oo madaxtooya in agaasimo ku-xigeen nisa u laabatay waa jago kale oo ka hooseysa agaasimihii guud hadii waa daay waxaan ku yiri aniga mar walba waxaan ka shaqeynayaa qanaacadeeda dalka sidii lagu maamulayay iyo falsafadii siyaasadeed lagu xukumayay iyo afkaarta siyaasadeed lagu maamulayay baan ku qanacsanaa marka macna ima sameeyeen inaan ku-xigeen ka noqdo iyo inaan agaasimo ka noqdo iyo inaan wasiir ka noqdo inaan shaqeynayo macna ay sameeyeen nisa marka aad timid iyo maanta oo aadan joogin guul ama dib u dhac maxaa farqiga u dhaxeeya maxaa way maanta timid iyo maanta والله sida fiican horta qof cadaalad ka shaqeynaya oo qiimeyn sax sameynaya fiican inuu qiimeeyo laakiin hadii aniga aan isku dayo aanan cidna ku xad gudbeynin hay'adaas culays fara badan oo haystay xaalada ay ku jirtay oo dib dhac u keenay dhibaatooyin fara badan oo khaldanayd waxaan aaminsanahay inaan wax badan oo wanaagsan u sameeyay wax badan aan u hagaajiyay haddaan tusaale ku siiyo waxaan hay'adda ka joojiyay oo dadka finance-ga dhaqaalaha dawladda ka shaqeeyana ay marag ka yihiin wax allaala waxa dhaqaale ajnabi ka imaanaya waa jaray waxaana ku shaqeynayay falsafad ah haddii la rabo sirdoon madax bannaan oo dalku leeyahay waa inuu xoolo dalka leeyahay oo ku shaqeeyaa sida darteed projectiyadii mashaariicdii aan cid kale maalgashigeeda nagala dhexeeyo dhan waa joojiyay anuu rabay askariga Soomaaliyeed ama sargaalka Soomaaliyeed nabad sugidda ka tirsan shaqada uu qabanayo inay ku jaango'naato awoodda dawladda ay leedahay waana meesha awoodda dawladda laga qiimeeyo qodobka labaadna waxa waaye waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo wixii faragelin ajnabi ah oo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ugu dhex jiray oo si hadda ka sheekeeyo laga nixi karo ku dhex jiray ilaa aan gaaray in xafiisyada qaar يعني لو دحرك جري قف أجنبي هو فديه وحنا جارسيني حرمها هي أدى أولا إن سنقف أجنبي إيمان كرين أسوان بلان لهين هدو بلان ليه أنا حفيز كريمات دي بدأ ولا حريريو حفيز أرمات دي بدأ أنا وقابليه
laakiin centerka qof ajnabi ma soo gali jirin laakiin waayadii hore waxay gaarsiisneed in lagu yiraahdo qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel qaybta wadan hebel waxaas oo dhan waa ka sifaynay marka faragelinta inaan ka sifaynay tan saddexaad oo ugu dambeysana waxa waaye tayada aqooneed tayada shaqo garaadka dadka meesha ka shaqeynaya oo aqoontooda iyo kartidooda aad u sareysay in hay'adda ay gaartay inay ka fiicnaato eraygaas waliba waa isticmaali karaa sirdoonadii dariska nala ahaa oo qaarkood aan annaga macallimiin u noqonay oo aan koorsooyin siinaynay oo aan tababaraynay ilaa aan gaarnay sirdoonada Afrika kuwooda ugu fiican ma gaari karin laakiin tartan aan dawlado badan dhaafnay baan gaarnay dhaqaalaha dibadda ayaad soo qaaday in hay'adda aad dhaqaale ka jirtay dibadda ka imaanaya dhaqaalahaas ma noo sheegi kartaa meelo iluu ka imaanaya fasax uma haysto hadda inaan sheego wadamadaas ma sheegi karo waa in la ii fasaxo inaan sheego ma sheegi karo laakiin waa ka joojinay qaybaha niisa ee ku dhex abuurnaa hay'adda gudaheeda ee hay'adaha kala ahaa ayaga tiradooda iyo dalalka ay saameynta joogtay oo xafiisyada ku lahaa waxay ku soo galayeen hab ay u bixinayeen projectiyo dawladda Soomaaliya ay ku kaalmeynayaan mesela waxa la dhahayaa ka hortagga burcadda waxa la dhahayaa la dagaalanka al-shabaabka waxa la dhahayaa la dagaalanka crime-ka dambiyada abaabulan waxa la dhahayaa hijrada sharci darrada ah ee dadku ay sameynayaan baa in ka kaalmeynayna laakiin waa qof ajnabi institution-ka soo dhex galaya meel adduunyada ka dhacdana ma jirto sirdoonka dalka inuu qof ajnabi intuu soo galo oo talo ku yeesho dalalka hay'adaha ah oo dalka joogay ama waa dawlado iyagu tusaale ahaan dawlad hebel ayaa hay'adda nabadgelyada Soomaaliya waxay siisay mashruuc la xiriira la dagaalanka dadka sharci darrada socdaalka ku yimaada ma dawladda bixinaysa mise hay'ad ayaa la soo marinaya ma dawladda bixinaysa sirdoon dawladda bixinaya oo intuu yimaado niisa Soomaaliya dhahay waxaan ka kaalmeynaynaa argagixisada waxaan ka kaalmeynaynaa kan laakiin anu markaan lamid waxaan ku iri wax allaalay wixii dhaqaale aad siinayseen markaan u baahan anaga idin sheegay iska haysto si laakiin diblomaasiyo edebsan inta qofka sargaalka ah haduuba ajnabi mishaar ka qaadanayo aqeedadiisa siyaasiga iyo aqeedadiisa wadaniyada ay dhaawac soo gaaraan fahad intii aad joogtay niisa inta aad sheegtay hadii aad ka qabatay dhinac kale waxaad ogolaatay sida dad badan kugu eedeeyaan ama siyaasiyiin kala duwan sheegaan in hay'adan ay noqoto hay'ad ay leedahay dawladda Qatar oo iyadoo dhaqaalaha mashaariicaha ay joojisay laga qaadan jiray ay dawladda Qatar bixiso eedeynta maxaa uga jawaabsaa walaalow waxni si nadariyada markaan aaminsanahay in dhaqaale ajnabi ah hay'ad sirdoon laga ilaaliyo ma ii saamaxay hadana dawladahaas kamid inaan ogolaado tusaale yar baan ku siinayaa dadka dhan marqaati ay ka yihiin hay'adda waxaan ka sameeynay dhismayaal wada waaweyn oo wada cusub kulli budgetka dawladda Soomaaliya laga bixiyo hal shilin oo dawlad ajnabi ah laga ma bixin dhismayaal waaweyn oo aad iyo aad u cajiib badan baan laga dhisay kulligeed rasiidka budgetka dawladda Soomaaliya wasaaradda maaliyadda bixinaysa hadii marka aan dawlad dhaqaale uga raadinayo dhismayaasha saxta ku bixin la iska daa wax kale xisaab xir hay'adda ma samaysay marka dhaqaalaha laga hadlay hadii way leedahay budget bay leedahay wasaaradda maaliyadda la xisaabtanta hanti dhowrka la xisaabtama bil munaasaba hanti dhowrka qaranka oo warsan kartaa waa markii ugu horeysay oo intaan anigu u yeeray aan ku imaada xafiiska imaada baara documentation-ka iyo waraaqaha fiiriyo Fahad Yaasiin waxa jirta hadal aad iyo aad u soo baxay 45 sano ee xukunka ee nabadii nolol u joogay madaxweyne Farmaajo dalka hogaaminaya adna taliyaan nabadgelyada inta ugu badneyd aad ahayd si weyn u soo shaabaxay waxyaabo badan laga sameeyay isku milanka al-shabaab iyo niisa waxaa la tiirinayaa adiga shakhsi ahaantaada Fahad in isku milankaas aad qayb weyn ka qaadatay hay'adana badankeed loo bedelay inay yihiin dad ka tirsan aan maanta la kala garan karin qofka niisa iyo qofka shabaab maxaa uga jawaabayda inta laba jawaabood waaye horta markooda wax aad loogu qoslo aadna looga naxo mustawa hooseeya waaye dadka Soomaalida in dad siyaasiyiin oo halkaas dhahay way jiraan marqaatiga ugu fiican waa xaqiiqada waa dhabta hay'adaas intii aan joogay dadka Soomaaliyeed ee Muqdisho jooga adugu warso dilalkii shirqoolka hoos buu dhacay almost waa tirtirnay dadkii bastooladaha magaalada Muqdisho lagu diri jiray oo shaqo weyn ka qabanay oo degmooyinka gaarsiinay 3 mitir walbaba askari dharcada oo bastoolad wata oo amniga ilaalinaya 3 mitir baan gaarsiinay magaalada Muqdisho
waxaa hoos u dhacay maaha waxaa tirtirmay in qof bastoolad loola baxo lagu dilo waadna garan kartaa xamar heerkay gaarsiisneyd waxaa hoos u dhacay qaraxyadii waxaa hoos u dhacay dilalkii qorshaysnaa waxaan gaarsiinay dadka magaalada muqdisho xildhibaanada iyo siyaasiyiintu inay xaafadaha qaarkood intay sii fogaadaan ay xaafado kale ay ku noolaadaan 2018 amniga magaalada muqdisho ma soo fiicnaaday mise waa sii halaabay dadka shacabka Soomaaliyeed warso marka ereyga isku milanka ma aqaano wax laga wado hataa yani macnaha uu sameeyay aniga ma garanayo laakiin hay'adda sirdoonka Soomaaliyeed awood ma u yeelatay inay xogta al-shabaab hesho awood ma u yeelatay inay shabaab intay dadka ka shaqeeya oo xogta u keeni kara inay intay dhex gasho xog qaranka anfacaya ka soo hesho laakiin haddii aanu annaga isku milanay amniga magaalada muqdisho sida u wanaagsanaada uma wanaagsanaadeen adiga fahad al-shabaab xiriir toos ah inaad la leedahay lagu weedaya oo leeyahay magaca kuugu baxay ee la kunyada lagu raaciyo ama la qabka ama Abu Amaar magaca Abu Amaar horta waxa bixiyay dawlad ajnabi ah oo dhibsanaysa Soomaaliya horumarkay gaartay waxayna u soo dhiibtay dad ayaga u shaqeeya oo magacaas faafiyay dawladdaas wata marba magaceeda hadina sheego laakiin Abu Amaar hadda aniga kula hadlay ceeb ma arko Amaar wiilkayga la dhahaa Abu Amaarna waa magac ceebna ma ahan khaladna ma ahan adigoo wiilkaaga curadka hadii lagu magac daro khalad ma arko laakiin waa magac la rabo in si kala loo dhigo laakiin aniga ceeb ma arko Abu Amaar aniga Abu Amaar baa maxaa khalad ku jira ma jiro wiilkayga la dhahaa Amaar ma jiro ayaad leedahay xiriir ama wada shaqayn nooca doonta ugu yar ama isku milan oo u dhaxeeya al-shabaab iyo nisa fiiri waxa la fiiriyaa qofkaanu waxa uu qabtay ma al-shabaab ay u adeegeen waxa ay siisaa ficilkaas oo dhacay baasaas ahaa laakiin magaalada muqdisho amnigeeda dawladda Soomaaliyeed ee xilligaas maamuleysay ma hagaajisay way hagaajisay ma hormarisay way hormarisay dadka ereyga faafinaya waa dad dhibsanaya awoodda aanu ku dhex yeelanay al-shabaab dhexdiisa xogta inaan ka heli karno Fahad Yaasiin waa kaaga mahad celinaya waraysiga mar kale marar badan Twitter-ka hay'adda NISA waxa lagu baahiyay macluumaad la xiriira waxa ka dhex jira kooxda aad la dagaalamaysan ee dawladda Soomaaliya ka soo horjeeda kadayr waxa ay lahayd isku milan baa idin ka dhaxeeya warkaas waxa uu ahaa war caadi oo dhacdo saxaafadda loogu talagalay tusaalahaan inay baahiso khilaaf ka dhex jira kooxda gudaheeda maxaa Twitter-ka NISA loogu baahay yaa way saxaafadda ku dhacday inay qorto xamar joogto maba awoodaan be they can't saxaafadda Soomaalidu waxay awoodaa inay ka hadasho waxa gudaha ka dhex jira kooxda intay ka ogaan karto laakiin idinka maxay ahayd xuduud bay leeyihiin waxa jira oo ku faraxsanahay su'aasha inay weydiisay adduunyada oo dhan hay'adaha amniga ka shaqeeya xogta argagixisada iyada adduunyada la wadaagto qaarna saxaafadda si liiga u siisaa qaarna ayadaa sheegta idinka maxay wax ka faa'iideysan warkii al-shabaab inaad ku baahisaan Twitter-ka dawladda Twitter-ka kala noqotaan ayagu Twitter-ka NISA ay leedahay waa Twitter loo sameeyay in shacabka Soomaaliyeed xog amni ay ku helaan waxaaba loo furay dadka in loogu warbixiyo marka warbixinta xasaasiga oo aysan warbaahinta Soomaalida awood u lahayn inay sheegaan annaga xaq u leenahay sheegno Twitter-ka dhanba waxa loo furay in ummadda lagu hadlo fariinta warkiinu gudbinayay ee gudaha kooxda gaarayay maxay macnaha ka leeyahay waxa waaye labo horta inaan u sheegno inaan xogtooda ogna labo inaan ummadda Soomaaliyeed oo la cabsi galay inaan u sheegno wuxuu inaysan wax weyn oo laga cabsadaba ahayn labadaas qodob ugu muhiimsanaa mararka qaarna waxaan u sameeynay khatar amni oo dalka ku soo socotay baan si sophisticated ah oo xirfadaysan baan u sheegaynay markaan xogtaas ay liigarowdana dadkii mu'aamarada ka shaqeynay oo dhan waa kala carar jireen marar badanna way dhacday waxaan rabaa intii hay'addan aad joogtay waxa dhacay khilaaf siyaasi ah khilaafka siyaasiga wuxuu ku saabsanaa kiiska Jubbaland Fahad waxa uu ahaa buddigaha dawladda iyo dawlad goboleedka Jubbaland ee arinta u dhaxaysa qofka dawladda Soomaaliya metelay ee wada hadalka kula jiray maamulka Jubbaland
xilligii 2018 ilaa 2019 sax ma tahay sida hadaa ii weydiiso kala waay aniga dawladda mas'uuliyiinteedan kamid ahaa marka dhacdo kastoo dawladda Soomaaliya khusayso qaar kamid ah qayb waa ka noqon karaa okay marka Jubbaland teeda inaan qayb ka noqdo de shaqadeeda laga yaabaa inay sabab 2018 saan xogta ku hayo waxaa jiray kulan dhex maray adiga oo fahada oo ka socda dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan taliyihii nabad sugidda ahaa ama matalayay madaxweynaha qaranka Axmed Madoobe oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo madaxda ugu sareeya laamaha amniga ee Kenya mid kamid ah kulankaas inuu ka dhacay Nairobi looga wada hadlay inaad Kenya ka dalbateen ka dawlad federaal ahaan arinta Jubbaland ee gudaha ah inay faragelinta ka dayso ay kala shaqeyso sidii Axmed Madoobe idinku oo khilaaf xiliga idin dhaxeeyay aad isku fahmi lahaydeen kulankaas ma dhacay kulankaas wuu jira aniga Axmed Madoobe inaan mas'uuliyiin Kenya la kulanay doodeedana ay ahayd inaan Kenyaanka u sheegaynay Soomaaliya arrimaheeda faraha ka qaada arinta Jubbaland faraha kala baxa faragelinta Soomaaliya faraha kala baxa wixii aad Soomaaliya uga baahantiin xamar la soo xiriira dawladda dhexe kala soo xiriira Axmed Madoobe oo fadhiyana u sheegay waliba hatta waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas'uuliyiin Kenya fadhiyaan Axmed Madoobe u sheega madaxweynaha ugu farmaajo waaye ma aha madaxweynaha Kenya احترامك iyo qadarinta iyo saaxiibtinimada uu muujinayo dawladda Kenya waxa ka mudnay dawladda Soomaaliya inuu muujiyo markaas dawladda Kenya inaad kala hadashaan Axmed Madoobe madaxweyne farmaajaha ixtiraamo inta uu ixtiraam lahaa madaxweyne Uhuru Kenyatta message-ka noocaasa sidee ayuu dawladda Soomaaliya ku ahaa Axmed Madoobe yaa keenay Soomaaliya yaa ku haya يو جوجا جبلان أحمد الله لكن وأنا مدحنا دورة جولات يا صوماليا كان أسوق تانج كيانا صار بوكس ما يمين هلا حاول ليس إنه يهينين دورة شكو يمين هلا كوال واحد لقوا حريني عيدن كم سومي كم ده هينكين هذا الشيء كوين كموقت وإسلاليهن هذي الإسراع راعينا وإسراع راعينا هذي لك الجرنا ولا كلا جريا أحمد مذوبي سيدي سبا ومشروع أجنبي هو بيري صوماليا صوماليا أنا كنول هذا سكلا كوجوديو أحمد مذوبي وكنسر سياسة الصومالية كجرا maalinta uu siyaasadda Soomaaliya meel uga baxo maalintaasina Soomaaliya hagaagisa Axmed Madoobe waa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland waxaana uu kamid yahay madaxda ugu xukunka dheer ee joogtay dowlad goboleedyada mana aha annagu ma hayno halka aad ugu yeertay kansar inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya 2018 kulankaas waxaan ogaanay xogta sida aad u sheegay si kale inay ahayd oo ah inaad ka wada hadasheen Kenya Axmed Madoobe inuu madaxweynaha dowlad goboleedka sii ahaado teeramka u bilaabanaya Agoosto 2019 idinkana uu idin fulinayo mashruuciina ku wajahan idinka markaa leeyahay dowladda federaalka ayaa ula jeedaa idin fulinayo mashruuciina ku wajahan 2021 doorashada inuu xildhibaanada idinka saacido sidana ku soo heshiiseen ma kulanka heshiisku ma dhamaanin khilaaf ku dhamaaday annagoo isfahminaan soo kala tagnay haddii aad dib u xusantahay taariikhda diyaaradii Muqdisho markaan imaaday oo elboor ka soo degay intii hawada aan soo saarnaa waa xiriirkii u jirta Soomaaliya marka sidee xiriirka ugu jirta hadaan ku soo heshiinay Kenya annagoo iskhilaafna soo kala tagnay Kenya marka aad la kulantay inay ka codsatay in ay ka tanaasushaan dacwadda badda si ay iyana malafka Jubbaland ku wareejiyo masaxada siyaabo kala duwan kulankaas siyaabo kala duwan marba kulankaas inaan ku soo qaado laakiin dawladda Kenya inay arinta badda rabtay in laga laabto arinta badda ay dawladda Soomaaliya ku pressure gareysay is not secret dadka dhan baa wada og in dawladda Soomaaliya u dhibaatooday kiiskaasna qof kasta oo Soomaaliya og waana sababta Axmed Madoobe Jubbaland loogu hayo dan Soomaaliya loogu ma hayo haddana uma joogo dan Soomaaliyeed waa eedayn weyn fahad eedaynta Axmed Madoobe anana Axmed Madoobe haddana lama joogo ee aad ugu yeertay inuu kansar ku yahay siyaasadda Soomaaliya intii aad joogteen wax yar baan ku sheegay